magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dadka wali waxa loo dilayaa lacag aan qiimaheedu aad u badnayn sida 2,000, 3,000 ilaa 5,000 oo shilin Soomaaliya. Booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay isla markaana uu soo bandhigay raggii ka dambeeyay dilka labadaasi marxuum. Allah u naxariistee. ciidanka booliska ee saldhigga Xamarweyne ee degmada gobolka Banaadir qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu gacanta ku soo dhigay eedaysana ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka Xamar kaasoo si arxan darro ah isna u dilay kaasoo lagu magacaabi jiray Caabo Qaasim Ducaale Cabdi oo si arxan darro ah u dilay isna sidoo kaleeto waaxda gobonimo ee agagaarka kawaanka Xamarweyne eedaysan dhibane wuxuu dilay dhibane lagu magacaabi jiray marxuum Abuukar Axmed Nuuraani 65 jir ahaa lagu dilay meeshaan inta waa